si fiican u fiiri waa intee musqulood 1 2 3 ilaa 5 way gaarayaan waana hal qol oo kaliya meeshaas waxaas ku jiraan muuqaallo iyo sidoo kale tasawirro sir ah ayaan idinkaga heynaa kuwaas oo laga soo duubay musqulaha jaamacadda barwaaqo iyo sidoo kale iskoolka abaarso muuqaaladan aan idinla wadaagi doono iyo sidoo kale sawirradan ayaa waxa ay yihiin kuwa si qarsoodi ah loo soo duubay iyo sawirro laga soo qaaday musqulahaasi sidoo kale barnaamijkan ayaa waxaan idinkula wadaagi doonaa xaqiiqda dhabta ah ee iskoolka abaarso iyo sidoo kale jaamacadda barwaaqo waxaana idinla wadaagi doonaa caddeemo rasmi ah kuwaasoo muujinaya in jaamacadda barwaaqo lagu fidiyo diinta Kiristanka haddaba saaxiibayaal inta aanan idinla wadaagin muuqaalada iyo sidoo kale sawirrada aan ka helno xogtan aan idinla wadaagayno waxaa naga codsiyaa inaad muuqaalka like saarto aad sii share gareyso hadaad ku cusubtahay channelkeennana waxaan kaa codsanaynaa inaad ku soo dhawaato oo subscribe saarto gombalelkana furato si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada aan halkan soo gelin soo noqod wanaagsan saaxiibayaal sidaan hore idinkugu soo sheegaba waxaan idinla wadaagi doonaa xog ku saabsan musqulaha jaamacadda barwaaqo iyo sidoo kale iskoolka abaarso xogtaasoo ah sawirro laga soo qaaday iyo sidoo kale muuqaallo gaagaaban oo laga soo duubay musqulaha halkaasi ku yaala qaabka ay yihiin sida ay u dhisan yihiin qaabka loo galo inta qof ee hal mar wada geli karta waad la yaabi doontaa markii aad aragtid sawirradan iyo sidoo kale muuqaal rasmi ah oo halkaas aan ka helnay musqulaha ayaa waxa ay u samaysan yihiin 2 4 4 6 6 qaab oo waxay u samaysan yihiin debel ah oo halkaasi maba ka jirtaba musqul hal qof ah waxaan ula jeedaa musqul loogu talagalay hal qof inuu galo waxaad ila aragtaan sawirka koowaad waa musqul 2 qof loogu talagalay inay wada gasho wadagelista ayaa waxaan ula jeedaa musqushan hal mar waxaa ku wada saxaroon karta ama godkeeda ku fadhiisan karta 2 qof labadaas qof oo aysan wax u dhaxeenin ama aysan u dhaxeenin wax labadooda kala qariya sida aad sawirka ka arkaysaba sawirka labaad aan halkaas ka helnay waa sawirkan hadda idin muuqda waa musqul 5 god leh 5 god oo meesha ku taala macnaheedu waxaan ula jeedaa 5 qof ayaa hal mar wada geli karta 2 iyo 2 ay iskaga soo horjeesanayaan qofna dhexda ayuu ku jiraa subxaanallah waa 5 qof oo aysan waxna u kala qarsaneen markay hal mar wada fariistaan oo xitaa laga yaabo kaadidooda inay is soo gaarto waa arrin fajac iyo amagaag ku abuuraysa ummadda Soomaaliyeed balse waxaa isweydiin mudan yaa musqulahan dhisay dadka dhisay ma ajaanib ay ahaayeen mase waxay ahaayeen Soomaali dhismaha ayaa waxa ula jeedaa dadka farsamada lahaa ee dhismaha ku shaqada maadaama uusan qof islaam ah 5 musqulood oo iska soo horjeeda uusan dhisi lahayn midkaasi waxa uu ahaa sawirka labaad bal aan isla eegno haddana sawirka saddexaad ee aan ka helnay meeshaasi jaamacadda barwaaqo iyo sidoo kale iskoolka abaarso sawirkan idin muuqda waxa uu muujinayaa loogada ama sida aad u taqaanidba calaamadda lagu garto jaamacaddaasi calaamadda jaamacadda waxa ay ka soo qaateen oo ay ka soo maanguuriyeen kofarka buugga ee gaaladu ku dhaqanto kaasoo loo yaqaano Tree of Life Family Bible buuggaas ayaa gudihiisa waxaa ku qoran diinta masiixiga oo gaalada Kiristanka ah ay caabudaan haddaba sida sawirka idinkaga muuqataba waa Muuse Biixi oo khudbad ka jeedinaya jaamacadda barwaaqo waxaa gadaashiisa ku xardhan boor aad u weyn kaasoo uu ku sawiran yahay jaamacadda magaceeda iyo sidoo kale loogada jaamacadda ama calaamadda jaamacadda ee adeegsato sidoo kale sawirka waxaa kaga muuqda qaybtiisa hoose buugga masiixiyiintu ay caabudaan kaasoo asaguna calaamadda ee jaamacadda barwaaqo meesha ugu dhagan asna uu halkan ugu dhagan yahay kulli waxay la tahay si fiican waad isku fiirsay oo waad aragtay balse waxaan leenahay Allah naga qabto gaaladan ku soo duushay wadankeena oo doonaya inay diinta Kiristanka ku fidiyaan balse ee garab aad u weyn ee ka haystaan dawladda Soomaaliland oo xabsi iyo sidoo kale tacaddi u geysanaysa qofkii ka soo horjeesta gaaladan doonaysa inay diinta Kiristanka ku fidiyaan dalka Soomaaliland waxaad in yar ila daawatiin muuqaal sir ah oo laga soo duubay musqulaha abaarso muuqaalka sida aad ka arkaysaba waa musqul dherer ahaan aad u dheer balse ballac ahaan aad u yar oo kuwii hore waa ay ka duwan tahay oo iskama soo horjeedaan musqulaha balse saf ay ku jiraan ama line sida aad u garanayso waa ilaa 6 musqulood
sida muuqaalka nooga muuqda. Haddaba si wada jir aan uga hortagno dhaqamadan aadka u foosho xun ee kusoo badanaya dalkeena, maadaama diinta islaamka lagu soo duulay, sidoo kalena la doonayo in lagu faafiyo dhaqamada kasoo horjeeda diinteena islaamka ah, kuwaasoo ah inay raggu isku galmoon karaan, sidoo kaleetana dumarku ayaguna isku galmoon karaan. Subxaanallah, dhaqankaas oo gaalada dhankooda waxna dhib aan ka lahayn, caadina ka ah. Haddaba wax yar ila daawo muuqaalka. qaale iyadoo baadiriyad ah kiniisada ka duceynaysa muuqaaladeeda anaga aan ogeynin oo baraha bulshada la soo dhigay. waxaa dhacday in ay isla markii muuqaalada iyadoo baadiriyad ah oo duceynaysa markii ay la arkay muuqaalada baraha bulshada loo arkay, isla markii dalka way ka tagtay. dalka waa laga musaafuriyay. okay, meesha maxaa ka cad walaal qaali? meesha maxaa ka cad? aniga fiiri, qof haddaan ka shakiyo, aniga ma aan dilin, ma aan weerarin, waxaan iray wax ay sameynayso, wax iskuulkulaas lagu haayo waa wax gaalnimo ah. in laga hadlana dastuurka Somaliland ayaa qabta. diinta wax araqladeenayo in laga qabta waxaa markaasi dhigaya dastuurka Somaliland. adiga Somaliland haddaad tiid dastuurkaaga ayaa qaba in diinta aan lagu soo xadgudbi karin. waaya waxaa dhacday in Cabdimaalik markii la xiray gabadhiina oo gaasha aheeday oo la yiraahdo Isa Joya Isa la dhahay, isla markii way baxday. maxay u baxday? okay, maxaa la rabay mas'uulka markaasi meesha joogay oo mas'uulka joogay Muuse Bixi iyo wasiirada kale ee xildhibaanada kale, maxay u dhihi waayeen naagtan hal soo celiyo, Cabdimaalik soo ma xirnaha, iyadana hal soo fadhiisiyo, ninkan Cabdimaalik la yiraahdo cadeeman ha keeno. hadduusan cadeemanka uu keeni waayey, asigaa jeelka cunay. jeelku wax ku cunaa. laakiin qoftii oo markaasi caday lahayd, cadanta laga soo saari lahayd, waa laga musaafuriyey dalka waa laga musaafuriyey. markii laga musaafuriyey, Cabdimaalik ilaa hadda wuu xiran. muxuu ku xiran yahay Cabdimaalik? marka yuu dilay, yuu wax yeelay, yuu wax ku sameeyey. wuu xiran yahay. waxa uu ku xiran yahay waa baadilnimo, waa waxaa runta u sheegtay. aniga 100% waxa huwa arrimaha aniga aan ka hadlay Cabdimaalik uu ka hadlay ay yihiin 100% oo wax sax ah. sababtoo ah markii qofka cadeen uu haysto oo la arko dhaqdhaqaaqiisa, filmaantana waa ku daawateen, hawada lagu cunaa. ila tahay inaad barnaamijkan oo dhammaystiran ah soo daawatay iyo xogtan aadka u muhiimka ah aan idinla wadaag. haddaba saaxiibayaal, muuqaalka like saar si uu dad badan u gaaro. sidoo kale haddaad ku cusubtahay channelkeena, waxaa naga xasuusina inaad subscribe saarto, gambaleelkana furato si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo sidoo kaleeto xogta aan halkan soo gelino. waad ku mahadsantahay daawashadaad muuqaalkan daawatay. intaa ku kulmi doono muuqaalka xiga, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo amaan Allah.